dadka badankoodu waxay aamusnida u yaqaanaan daciifnimo iyo kalsooni darro ka soo ifbaxda qofka aamusan. dadka qaar waxay fogeeyaan oo ay yareystaan awoodda dadka aamusan. dunidan casriga ahna way adag tahay inay dadka aamusan helaan fursad ay ku hadlaan oo ay ku gudbiyaan fikirkooda, maadaama uu qof kastaaba doonayo inuu isagoo hadlo oo la dhageysto. haddaba ugu horreyn aynu qeexno waa maxay aamusnidu. aamusnidu waa dareen deganaanshiyo ah oo uu qofku galo xilliyada lagu guda jiro wadahadallada bulsheed. wadahadalladaas waxay u dhaxayn karaan laba qof iyo wixii ka badan. dadku inay aamusaan waxa ku kalifa waxyaabo kala duwan. waxaa xusid mudan inay dadka qaar si dabiici ah u yihiin dad aamusan. waxyaabaha sababta u ah inuu qofku aamuso waxaa ka mid ah: 1. inuu qofku yahay qof xishood badan oo aan raaxa iyo nafis ku dareemayn inay dadku hadalkiisa dhageystaan. 2. inuu qofku door bidayo inuu isagu dadka dhageysto intii isaga la dhageysan lahaa. taasina waa aamusni ku timaada doorashada qofka. 3. inay qofka aamusnidu ku sababtay dhacdooyin hore oo soo maray, sida inaan hadalkiisa la dhageysan jirin markii uu yaraa, in markasta lagu odhan jiray aamus, iyo waxyaabo kale oo la mid ah. 4. sidoo kale qofka aamusnida waxa ku sababi kara caqabad luuqadeed ama dhaqan. oo tusaale, adigoo qof weyn ah ayaa timid dal kale oo aan luuqadaad garanaysa lagaga hadlayn. waxa kugu adkaanaysa inay sheekadaadu badato ilaa ay luuqadaadu adkaanayso. dhaqanka iyo sida ay u nool yihiin bulshada uu qofku u tagayaana waxay qayb weyn ka qaadanaysaa aamusnidiisa. oo waxa macquul ah inuu qofku ku arko dalkaas iyo dadka uu u tagay dhaqanno lidi ku ah dhaqankiisa, diintiisa iyo waxyaabo la mid ah. haddaba waxa macquul ah inaad isweydiinayso: aamusnidu ma dhaqan aan wanaagsanaynba? jawaabta oo kooban: maya. aamusnidu ma aha dhaqan aad u liita oo xun, sababtoo ah aamusnida waxa ku lamaan dhaqanno aad u qaali ah, kuwaasoo ay beertarayaan ama ay ku ciyaaraan dadka hadalka badan. faa'iidooyinkaas aamusnida waxaa ka mid ah: 1. dadka aamusan waa dad awood u leh inay si fiican u fahmaan hadalka loo sheegayo, maadaama ay inta ugu badan dhageysanayaan dadka kale. 2. dadka aamusan waa dad hal abuur iyo wax soo saar badan, waayo waa dad inta ugu badan ku mashquulsan fikir iyo qiimeyn. 3. dadka aamusan waa dad ku hadla fikrado iyo hadallo ay in badan ka soo fikireen, maadaama ay in badan aamusan yihiin. dadka aamusan waa dad aad uga fiirsada waxyaabaha ay dadka la wadaagayaan. 4. dadka aamusan waa dad aan anaani ahayn oo aan jeclayn in keliya iyaga la dhageysto, ee waa dad iyaguna jecel inay markooda dhageystaan dadka kale. taasina waa awood qarsoon oo aanay lahayn dadka hadalka badan. 5. dadka aamusan waa dad ay aad u adag tahay in hore laga qiimeeyo oo la sheego fikradaha iyo aragtiyaha ay aaminsan yihiin. maadaama aanay dadkani hadal badnayn, waxaa dadka kale ku adkaanaysaa inay bartaan shakhsiyadda runta ah ee qofka aamusan. dadka aamusani waa xujo ay adag tahay in la furo. 6. dadka aamusan waa dad aad naftooda uga warhaya oo og waxyaabaha ay ku wanaagsan yihiin iyo waxyaabaha ay ku liitaan. maadaama ay wakhtiga ugu badan ku qaataan kalinimo, waxay saaxiib wanaagsan ka dhigtaan naftooda. barnaamijkeenna maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. waxaan kaaga tegayaa: aamusnidu waa awood qarsoon oo ay keliya ka faa'iidaystaan mufakiriintu. waxaan kuu rajaynayaa nolol qurux badan insha Allah. nabad ahow.